Assalamu alaikum. Waa Dr. Farax Bede. Maantana waxaan idinla wadaagayaa qaybtii coronavirus Somaliland Health Professional Training. Waa cajalada aan soo duubay oo ku xisaabsan coronavirus. Maantana waxaan ka hadlayaa sida loo maamuli karo dumarka xaamilaha ah iyo carruurta. Slideska dumarka xaamiladana waxaa soo diyaariyay Dr. Salwa Cabdilaahi. Aad bay mahadsan tahay. Somaliland Health Professionals COVID-19 lectures waa lecture series aan sameeyay YouTube-ka inshallah ayaan gelin iyo meelo badan baan idin dhigi. Also waxaan u dhiibay the Edna Adam Foundation sida qof kasta uu u baahan yahay u helo. Waxaa ku jirta war badan oo ku xisaabsan COVID-19 iyo updates waxyaabo cusub oo kusoo biiray. Lecture-kan waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha kusoo biiray COVID-19, wargelinta dadweynaha Soomaaliyeed iyo dumarka xaamilada la siin karo ee COVID-19 sida loo maamulayo dumarka xaamilada ah iyo carruurta markay COVID-19 lagu jiro, iyo cudurkan cusub ee soo baxay ee carruurta ku dhacay ee loo maleeyay inay COVID-19 dadka u saameeyay. Marka koley waad la socotaan warka. Shalay 18 May bay ahayd. Marka shalay waxaa la iri COVID-19 haddaad ku aragtaan xumad iyo qofac waa halkeedii, waa calaamadaha ay cudurkaasi gaar u leedahay. Laakiin waxaa kusoo biirtay haddaad urta iyo dhadhamada ay kaa tagto, taasina waa calaamada lagu garto COVID-19. Waxaa la arkay daraad warkii Ingiriiska waxaa laga sheegay nin neurosurgeon oo ka shaqeynaya Hospital London in badan buu isku arkay isagoo dhadhankii iyo urtii ay ka tagtay. Laakiin wuu shaqo tegayay, muu moodayn inay waxani COVID-19 tahay. Maalin dhaweyd uunbaa la test gareeyay, xumad iyo qofac muu lahayn, intaasun buu lahaa, waxaa laga helay cudurkii. Marka shalay buu warkii interview laga qaado wuxuu iri de waa dhibaato weeyaan, anigoo dakhtara ayaan calaamadahaas ku arkay. Markii hore lama la iima sheegin oo lama caddayn inay cudurkaasi ay calaamadaha yeelan karto. Marka imika dadweynahu ogaada inay calaamadahaasi lagu arki karo. Marka haddii saddexda calaamood uu qofku isku arko, xumad, qofac ama dareenku yaraado urta iyo dhadhanka, waa inuu 7 maalmood gurigiisa joogo, waa inuu COVID-19 call center-ka la hadlo oo marka halkaa jawaab ka sugo. Waxyaabaha kale cusub ee updates kale waa risk factors-ka. Marka kuwanina waa cudurada qofku hadduu qabo marka dambena hadduu COVID-19 qaado ay riski u tahay ama cudurka ay kusii xumaan karto, cudurku ay meel halisa u marto ama uu ku dhiman karo. Marka dadka dhiigkarka qaba risk factor-ku waa 3 times more likely, 3 goor ayay ka badan yihiin inay dhintaan dadka marka lagu compare gareeyo dadka kale aan cudurka qabin. Diabetes-kuna waa 2.85 waa iska 3. Coronary artery disease
the biggest risk factor waa 21 goor more likely inay ka dhintaan coronavirus hadday cudurkaa qaadaan compared to qof aan cudurkaa qabin. Informationkanna waxaa laga keenay marka dadkii COVID-19 ku dhintay la qalay markay dhinteen waxaa la arkay badnay autopsieskii ina wadna xanuun ama wadnihii oo inflamed noqotay, wadnihii oo barartay oo xanuun ku dhacday, dadaanan even wadna xanuun qabinba waxaa lagu arkay. Marka ka waran haddaad wadna xanuun marka hore haysatidba cudurkaasi riskiba kugu ridi kartaa. Marka informationkani waxay u fiican tahay dadka maamulaya goobabka caafimaadka because waxay wargelin gaara ayaa dadkan dhiigkarka, macaanka iyo wadna xanuunka haysta la siin karaa inay iyagu aad isu ilaaliyaan weeyaan. Inkasta ilaahayba wax ilaaliya laakiin iyaguna waa inay dadaalaan. Marka shieldingka ayay u fiican tahay dadkan cudurada lagu leeyahay guryihiina iska jooga. Shieldingkiina waad ogtihiin mar horena waan ka hadlay, waa wargelin dad la siinaya lagu leeyahay guryihiina 3 bilood iska jooga. Weliba markay cudurku imika maalintii ugu dhaweyd 100 qof baa laga helay cudurka Somaliland, ilaa 10 way ku dhinteen. Marka adigu waa 10% imika maanta waa 19 May, marka waa 10% ayaa laga helay ee dadka cudurka qaaday ee tested positive 10% baa dhintay. Marka haddaad rabtaan insha Allah inuu dhimashada hoos u dhaco, dadkan jilicsan leh cuduradan faraha badan leh ee halkan ku qoran informationkan email baan idinkugu soo diri karaa. Dadkaasina waa ina wargelin gaara la siiyo inta informationkooda meelaha ay tagi jireen ee goobka caafimaadka la xiriir la lahaayeen inta la ogaado. Marka imikana waxaynu ka hadlaynaa cudurkan COVID-19 dadku markay uurka leeyihiin xaamilada yihiin siday ku noqoto. Marka badnay imika dumar badan oo ama iyagoo uur leh ay qaadeen cudurkan ama iyagoo ay umulayaan laga helay, badnay dhibaato badan laguma arkin. Imika waad la socotaan Prime Ministerka Ingiriiska ilmihiisa u dhashay beriga dhaweyd, hooyadii coronavirus taasay qabtay iyadoo 7 bilood ah. Waxay isku aragtay qofac iyo xumad, laakiin markii dambe waa kii ilmo yaroo caafimaad qaba u dhashay. Marka sidaa iyo sileeg meelo badan baa saa laga arkay. Case baa jirta Ingiriiska oo markuu ilmihii dhashay unbaa la arkay inuu COVID-19 qabo. Cudur muu lahayn laakiin hooyadii baa xanuunsatay oo hospitaalka adigu week wax saas oo kale 7 ku jirtay, markii dambena way soo hooyatay. Lama arkin inay cudurkan COVID-19 ay miscarriage ama ilmihii uurka ku dhintay arkay. Hadduu cudurkani uu ilmaha ku dhaco markuu dhasho, badnay waa hooyadu ka imaaday oo ilmagaleenku cudurkaasi vertical transmission buu ka helay ilmagaleenka. Marka taasina ogaada badnay waa sidaas. Even hadday hooyadu aynan qofac ama xumad ama calaamada gaar aan lahayn, badnay waxaa jira dad aanan cudurkaba muujinba oo aan calaamadaba lahayn laakiin cudurka qaba oo waxyaabo fudud isku arkay sida dhadhankii ama urtii ka tagtay. Laakiin dumarka uur kale inta badan wax dhadhan isbedel iyo waxaasoo dhan wayba arkaan, marka way adag tahay. Laakiin haddayna xanuunsanayn badnay waa sidaa. Dhibaato badan inta badan uma geyso.
laakiin waynu ognahay dumarku markay uurka leeyihiin daafacadooda hoos u dhacdaa. Marka way jiraan cases dumarku dhintay ingiriiska oo kale gabadh nurse oo ku dhimatay way jirtay. Marka waa sida qof kasta oo cudurkan qaba, dadna way ku dhintaan dadna way ku badbaadaan. laakiin si gaar ah ingiriiska looma oran dumarku xaamilada inay guryahoodan kasoo bixin. laakiin hadday cudur kale qabaan, like hadday macaan qabaan iyagoo uur leh, ama iyagoo hadday macaan qabaan ama dhiigkar ama wadna xanuun, kuwaasoo kale waa inay gurigooda ku jiraan 3 bilood ilaa intay umulayaan. marka dumarka waxaa loogu talin karaa hadday uur leeyihiin sida dadweynahoo kale gacmaha maydha oo dhaqa 20 daqiiqood, t-shirt isticmaala haddaad qofacaysaan, ama dadka kula nool t-shirt isticmaalaan ay qofacayaan, ama gacantooda ku qofacaan oo gacmaha markaa degdeg loo maydho. nadaafad fiicni waa muhiim haddaad guri la gashid gabadh uur leh. gaari u gaara wanaagsan in dumarka uurkale lagu qaado, inay basaska iyo waxaasoo kale raacaan ma fiicna, iyo meelaha faraha badan leh. haddaad baxaysaana afka daboola oo kala fogaada, taasaa muhiima. ma aad uur leedahay ama ha lahaanin, laakiin taasi waa muhiim weyn. dumarka uurkana waaba muhiim. meelaha dadka faraha badan lena iska ilaali. buuqashada badanna iska daa, dadka ama adiga kusoo buuqanaya ama adoo aad u tagaysid. haddaad caawimo baahatidna haska taginuuno bukaanka socda ma fiicna. iminka waan ogahay, waan la socdaa inaad coronavirus hospital aad leedihiin u gaara, laakiin run ahaantii qof kasta coronavirus uu haysan karaa. anu waan haysan karaa anigoon ogeyn, qof kasta. marka bukaanka socda waa dhibaato weeyaan. waxa fiican qof kasta ama coronavirus hospitaalka hala hadlo ama meel kale hala hadlo, laakiin bukaanka socda waa in la joojiyo oo waa inuu qofkii meel lasoo hadlo. cudur kasta ha qabo, laakiin waa inuu telefoon soo diro, because waxaa laga yaabaa beri dhow inaad qof kasta oo caafimaad ka shaqeynaya inuu baahanayo PPE, ama qofku calaamado COVID-19 ha haysto ama yuunan haysan, because cudurka haddii kale si kale laguma joojin karo. laakiin taa waynu ka hadli doonaa. marka dumarkuna hadday 7 bilood gaadhaan oo dhalashadiiba soo dhowdahay, waxaa fiican markaasoo kale inaynan dadkaba arkinba oo gurigooda ku jiraan ilaa inta ay ilmahaas u dhalanayo. marka waanu ka hadalnay inay calaamada cusub ay kusoo biirtay. marka mida kalena haddii dumarka uurkale ay naqaska ku dhego, waa inay si degdega emergency la hadlaan ama coronavirus call centerka ama hospitaaladan kale maternityga sida cidna aadan hospitaalkeeda. laakiin telefoonka soo garaaca hadday dareemaan dhibaato kale oo ilmihii ma dhaqdhaqaaqayo, ama dhiig ama calool xanuun, taasina waa emergency. waa inay si degdega ula soo hadlaan oo la keeno hospitaalka. hadday u baahdaan inay tagaan hospitaaladana oo ay soo hadlaan oo lagu yirahdo imaada, afka ha daboolaan, gaari u gaara ha lagu qaado. saasa ugu wacan. marka badni ingiriiska iyo meel kastaba waxaa la rabaa imika inuu dumarka xaamilada ah ina la yareeyo dadkan ay arkayaan. iminka ingiriiska oo kale scanska loo sameeyo ultrasoundka waa lasoo yareeyay. adigu dumarku hadday miscarriage markii hore lahaayeen 7 week markay uur leeyihiin baa la scan garayn jiray, laakiin taa waa la joojiyey. because waxaa laga baqaya hadday dumarkani aaday hospitaalka u imaadaan, ama iyagaa qaadi cudurka ama dadka kale qabadsiin. marka labadaba uma fiicnaa. marka waxaad ka fikirtaan sida dumarka xaamilada ah
sidee loo maamulaya viruskan in badan buu nala joogayaa ayaa loo malaynayaa vaccinekiina ma soo dhowaa marka waa in laga fikiro telemedicine qofkiyo telephone ama video lagu caawiyey prenatal careka imika bookingka qofka markuu uurka uu marka hore soo ogaado informationka telephone baa lagu siin karaa haddaad u baahan tihiin waxaa blood pressureka iyo waxaasoo kale kits baa jira blood pressure machineka laakiin aqoon bay waxaasoo dhan u baahan yihiin waana dumarka la baro sida loo sameeyo haddaynan waxaa jirin oo wax gaaro dumarka la siin kara inaanan jirin marka waa ina face maskska lagu dadaalo afka daboolaan markay meelaha tegayaan online hadday haystaan oo telephone smartphone haystaan taa way isticmaali karaan oo umulisadooday la xiriiri karaan markay umushana hadday dhibaatooyin leedahay ama inta badan dumarku markay caanaha markay ilmaha jaqsiinayaan oo ka cusub yihiin weliba kolkol naaska xanuuni karaa problems baa dhici karaa ama waxay u baahan yihiin inay wax yaroo iska fudud ay umulisa kala hadlaan ama mid dhakhtar markaasoo kale imika ingiriis waxaynu soo sawiraa laga qaadaa waxaa sawir soo dir sawirkaas dhakhtar ba eegaya ama qof kale marka jawaab baa looga siin karaa haa cream baad u baahan tahay ama antibiotic baad u baahan tahay ama sidan samee ama kaadidaadii intaad hal meel keentid iska tag anigaa kula soo hadli doona haddii wax ka helno antibiotic baa laguu soo diri karaa ama qof baa kuu soo dooni karaa marka waxyaabahaasoo kale waa inaad ka fikirtaan qofkii markuu dhalashadii ay soo dhowdahay oo ay 9 bilood ama 8 bilood ay buuxsan tahay waanu soo hadlo gabadhaas markay soo hadasho waxaa la weydiinayaa imika waqtigan aad joogtaan koley waxaad weydiinaysaan xumad maad leedahay qofac maad leedahay waxaad weydiinaysaa naqasku may kugu dhegaysaa hadday calaamado COVID-19 aanan qabin oo weliba calaamadahan cusubna weydiiya dareenkii sanka iyo afka may kaa yaraatay wax ma dhadhamin kartaa wax ma urin kartaa haddii waxaas dhan maya tidhaahdo oo weliba adaad weydiisid qof xanuunka qaba guri maad wada degan tihiin ama meel maad wada joogteen hadday low risk tahay waa caadi low risk ward baad geyn kartaan oo dumar wada aanan COVID-19 qabin dad doonaysan waad test garayn kartaan dad testing capability haysataan haddii kale meel wada dumaran cudurka calaamada aan lahaynba ayay ku umuli karaan laakiin umulisaha halkaa ka shaqaynaya meesha low riska waa inay iyagu face mask qaataan iyo PPE-ga because yes waa low risk dumarkani laakiin 100% lama hubo marka uma baahnin inaynu umulisadana inay cudur qaadaan because marka horeba in badan ma haysano marka intaynu haysanno waa inaynu ilaashano marka dumarka halkaa joogana iyaguna afka hadda booshaan low risk ah because lama hubo qofku haa calaamado ma leh haddaad test garayn kartaana testkii dhaqsaa uma soo noqonaya haddii doonayso testkaas gabadhii umushay buu iman karaa marka kasii fikira sidaa haddii gabadhii ay tiraahdo anigu calaamadahaas COVID baan qabaa waaba high risk weeyaan marka waa ina meel gaara oo qof full PPE gashan uu maamulo waa ina testingkii loo diro waa ina wixii o dhan loo diyaariyo hadday si caadi umuli karto waa wanaag hadday dhibaato aad la kulantaan maraykankiyo meelo badan waxay leeyihiin waxa fiican early epidural because taasaa ka safe ah C-sectionka haddaad epidural haysataan koley waad haysataan marka haddii kale waa ina cesarean lagu sameeyo hadday dhibaatad la kulantaan
cesarean tahayna waa surgical procedure marka surgical talki waa tiinu sameyno Dr. Marwe Jamac ay demonstrate garaysay idin tustay sida surgical zoningka loo sameynayo hot and cold ama dirty and clean area of the operating theaterka marka hadii gabadhu high risk tahay oo calaamadihii COVID-19 qabto testingkiina la diray waa dadku waa inay N95 FFP3 gashadaan cesarean section ina negative pressure haday u baahato and ITU waa ina diyaar loo ahaado hadii iyada ama ilmuhu u baahdo group baa dhexda ku jirto medium risk ama moderate risk kuwa aanan la hubin ama hal calaamad bay leeyihiin ama lamaba hubaba ama qof xanuunsan iyo guri la galeen testing lama sameyn marka kuwaasina waa iska high risk yuguba waa ina qol gaara ay ku umulaan testingkii loo sameeyo waa sidaa iyo sidaag marka waad arkaysaan hoosta close contactku waa qof aad la nooshahay because dadka aad la nooshahay less than 2 meter baad isku jirtaan laakiin dadka kale waa haddaad qof aad less than 2 meter oo 30 minute aad isla joogteen waa contact weyn waa qof marka haddaad qof saasoo kale aad 30 minute aad isla joogteen oo wada hadasheen hadhowna oo la yiraahdo qofkaas coronavirus baa laga helay adiguna markaa waa inaa lagu baaro saana waa ina loogu sheego dumarka xaamilada ah marka waa guidelines aad isticmaali kartaan kuwaasi tanna waa guideline kale waxay idin tusaysaa outpatient teamka sida clinicska sida iyagu daryeelkeeda u maamuli karaan inpatientkana se iyagu daryeelkeeda u maamuli karaan marka koley hospital kasta pathway buu imika leeyahay kanina waa mid aad isticmaali kartaan marka imika waxaan ka hadli lahaa COVID-19 hospitalku wuu fiican yahay because hospital u gaara sida aad u haysataan Somaliland waa sax weeyaan laakiin imika 100 case baad haysataan 10 qofna way dhinteen oo wax saas oo kale koley imika maanta warkii baa la sugayaa way sii badan doonaan ilaahay naga hayo marka lama oran karayo just hospital kaliya ama dhowr hospital uma COVID-19 ka maamuli kara qof aanan ismoodayn ayaa oo asymptomatic oo aan cudurka calaamadihiisa lahayn baa cudurka dadka kala qabansiin karaa marka waa inay modelkan aad badashaan oo aad ka fikirtaan COVID-19 hospitalada way jiri karaan oo dadka seriouska halka hala dhigo intensive careka laakiin hadduu qof bukaanka socda ay tagaan oo COVID-19 qaba meelo kale haday tagaana maxaa dhacaya marka hospitalada oo dhan clinicska oo dhan waa inay PPE diyaar u haystaan ama COVID-19 special hospital u noqdaan ama yeena noqon bukaanka socdana waa ina lagu iraahdo telefoon soo dira aska imanina uun emergency waa lagu arki karaa laakiin ama isa soo sheega taasa muhiima because haddii kale duu bukaan socda oo wax kale uu imaado gacan baan ka jabay wax kale oo COVID-19 qabo oo qofkii caafimaadka ay caawinayay uu COVID-19 qofka ka qaado oo qofka shaqaalahana dad badan oo kale hospitaalka ama clinica ku eego cudurkii dad fara badan bay si dhaqso u gaaraysaa marka waa muhiim weeyaan in imika waqtigan la yiraahdo qof kasta COVID-19 patient weeyaan
PPE-ga la gashado. PPE-ga aad gashan kartaan waa face maska, waa gloves, waa gown. Qofka bukaanka socda ayse soo sheegaa. Hadhowna hadda aad weydiisaan oo tidhaahdaan ma qabtaan calaamadahan gaarka Covid-ka oo idhaahda haa, marka waa ina meel u secure qof full PPE N95 FFP3 gashan waa ina loogu wareego. Waan ogahay PPE meel kasta wuu ka yaryahay, wuu ka go-on yahay, laakiin dadaala un inaad ismaamushaan oo nidaam loo yeelo systemkii. Hadii kale cudurkii si degdeg ugu faafayaa. Xasuusta inay dadku 8 ilaa 30 maalmood ay cudurka ay dadka kala qaadsiin karaan, viral shedding wax la yiraahdo. Cudurkana wuxuu ugu dawan yahay cudurada kale iyadoo qofkii uu bilowgii uunay calaamadihii lagu arkay ayuu virus fara badan sii dayn karaa, dadka kala qabadsiin karaa. Marka reason-kaasuu hore u fidmayaa. Marka anesthetic society-ga Maraykanku iyagu waxayba leeyihiin epiduralska ayaa ka wacan, early epiduralka ka wacan hadaa qofku uu u baahdo to reduce risk of cesareanka. Marka kuwani waa just waa guideline weeyaan, khasab maaha inaad follow garaysaan, laakiin waa waxay iyagu ay advice siinayaan. Adinkuna waad google garayn kartaan, long documents bay hayaan wacdigelina. Waxay yidhaahdeen COVID-19 reason maaha ina la joojiyo anesthesia, laakiin gas and air, nitrous oxide ka la yidhaahdo gas and air, remember waxay noqon kartaa AGP. Now AGP waa any procedure ama hab ay cudurkaasi ay dhibco yaryar oo fara badan qofka laga sii daayo oo ay markaan dadka kala qaadsiin karaan. Marka bahalkan gaasaneerku qof kasta isticmaalay wuu garanayaa marka aad oxygenka ku siinaya dhibco badan baa kasoo imaada oo qolka aad umalisadii adiga ku jirtaan gaas badan baa ku furmaya. Markaad umalisada kula joogto ama ku caawinaysaa ama qof kaleba ha noqdo, qofkaasi wuu qaadi karaa dad adigu aad qabtid ama aanan calaamadaba haynin oo aad coronavirus haysid. Marka reasonkaasi u leeyihiin gaasaneerkan waa aerosol generating procedure weeyaan. Marka waa ina full PPE loo gashado qofka kula jira. Marka full FFP-giina waa dhinaca bidixda weeyaan, midigtana waa caadi, waa sidaa isileeg but qofkii oo surgical face mask unbuu gashan yahay. Taasuna ku kala duwan yihiin, midigta waa surgical face mask, bidixdana waa N95 ama FFP3. Marka ilmihii markuu dhasho, marka horeba waxaa lagu oranayaa waana gabadha lagu yiraahdo in badan hospitaalada laguma jiri karo waqtigan COVID-19. Marka ilmahaagu markuu si wacan oo safe oo daryeelo u dhasho, waxa ku wanaagsan inaad gurigaagii ku wareegtid. Marka hore dumarka saa ha u fahmaan, familieska ha u fahmaan. Mar rabna dad in badan hospitaalada ku jira because more hospital ku jiraan iyagu cudurkay qaadi karaan, babyga cudurka qaadi karaa waa dhib weeyaan. Marka kolay waad ogtihiin. Marka dumarkana waa inay gacmo maydhitaanka aad u badiyaan, naaska way jaqsiin karaan, laakiin hadday gabadhu ay qofacayso ama hadday hindhisayso waa inay afka daboolato. Hadday aad u xanuunsanayso markaa maba muujin kartaba ilmaha, marka naaska ma jaqsiin karto. Markaasoo kale
waana waxyaabo kale loo sameeyo laakiin horta naasku waa muhiim weeyaan. Ilmaha wuxuu siinayaa dhiigan cad marka carruurta naaska la siiyo carruurta aanan la siinin firqado waaweyn baa u kala dhexeeya. Marka naasku waa caafimaad weeyaan, in laga joojiyo ma aha. Haddii hooyadu ay xanuunsato mooyaane markasta waa in lagu dadaalo. Marka ingiriiska waxa lagu leeyahay sii naaska laakiin ha ku quficin ilmaha. Afkana daboola haddaad hindhistid ama haddaad qof u baahatid. Ilaasho ilmahaagana ha u dhiibin qof xanuunsanaya. Taasi hooyo kasta way garanaysaa, in loo sheego uma baahna, laakiin kolay inaad iskala xasuusiyo way wanaagsan tahay. Dadka ilmaha taabanayana waa inay markasta gacmaha maydhaan. Marka waxaynu soo gaadhnay cudurkan cusub ee carruurta laga helay. Marka markii hore waxaa la mooday anigu markaan carruur saas oo kala arkay cudurkan Kawasaki bay u eg tahay. Waxaa lagu keenayaa ilmo xumad leh, dabnihii ama ay dildilaaceen, farihii diirkii ka hoolmay oo aan ama qufac lahayn. Marka carruur badan oo saasa la arkay. Marka carruurta marka la baaray waxaa la arkay inay dhiigooda cad ay kacsan tahay oo inflammation CRP/ESR hor u kacsan tahay oo qaar badanna laga helay COVID-19 baba laga helay iyagoona qofacba lahayn. Carruur sidan oo kalena way aad bay ugu xanuunsadeen, ma badna laakiin adigu dhowr. Marka hospitaalkii la geeyey waxaa laga helay dhibaatooyin dhowra aan ka hadli doono. Marka dhibaatooyinka waan ka hadli doonaa, laakiin calaamadahan horta idinla wadaagaya cudurkan. Waa cudur xinjirada dhiigga barar u yeesha oo inflammation u yeesha. Badni waa carruurta 5 jir iyo ka yar. Marka wadnahay dhibaato u keeni kartaa, inflammation of wadnaha. Marka wadna xanuunkaasina waxa halis cudurkan ka dhigtaa. Marka hore carruurtii waxay yeelanayaan xumad, rash, waxay xasaasiyad oo kale, indhahu way casaanayaan, dabnuhu way dilaacayaan, carabkiiba casaan noqonaya iyo dabnihii. Marka dambena ilmihii calool xanuun buu sheeganayaa ama wuu ooyayaa. Haddii ilmo aan hadli karin oo yar ooyayaa, calool xanuun, matag, shuban, madax xanuun, jaundice baa ku dhici kartaa, xubno xanuun. Marka dambena cudurkan ama wuu iska tagi karaa oo ilaahay baa carruurta ka kaxayn karaa, ama aad bay u xanuunsan karaan oo waana hospitaalka la geeyo. Marka cudurkani coronavirustu waan ogahay inaanan qoraalka yara arki karayn, laakiin waan weyneeyey. Marka coronavirusti waa taa cas ee xagga kore. Marka ay seelka soo galayso waxay inta badan gashaa ACE2 receptorka yare xidigta u eg. Marka receptorskaasina waxay ku jiraan badni xubnaha, xinjiraha, samabyada, wadnaha, kelyaha, caloosha iyo beerka. Marka meelahaasoo dhan ay coronavirustu gashaa. Markay meelahaasoo dhan gashana barar iyo cudur bay ku ridaysaa, inflammation la yiraahdo. Marka cytokine stormkii markay samayso, markii dambena local and systemic inflammatory response oo SIRS bay ku ridaysaa. SIRS markay ku rido, we know that SIRS xinjiro dhiiga samaysmi kara,
xididyada dhiiga qaadano aad bay u barari karaan oo dhiiga si fiican xubnaha lama wadaagayaan. Markay xubnihiina ay oxygenkii dhiigi ka yaraadaan, biyaa geli karaa, oxygen baa hoos geli karaa, wadna xanuun baa dhici karaa, failure baa markii dambe dhacaya markay dhiig iyo oxygen ay waayaan. Marka artsna waad ogtihiin waa serious weeyaan, waa samabyadii oo wada biyo galay oo qofkii aanan oxygenkii aanan helayn. Marka dhowr goor baa laga arkay cudurkan oo Kawasaki loo maleeyay, laakiin COVID-19 baana laga helay. Marka waa cudur cusub weeyaan, maaha Kawasaki, because Kawasaki COVID-19 lagama helin before. Marka this condition waxaa la yidhahdaa multi-system inflammatory disorder. Marka badni waa Europe iyo Americanka ayaa laga helaa, laakiin waxaa laga yaabaa in adduunka oo dhan ku jirto, laakiin weli aanan lasoo sheegin. Marka sidaan kuu sheegay bay carruurta ugu dhacdaa, waana khatar weeyaan. Haddii ilmuhu aad ugu xanuunsado waa in dhakhtarka la geeyo. Laakiin haddaad calaamadaha badni aad ku aragtaan ilmaha, waxaa fiican inaan hooyadaasi ama aabahaasi inuu goobka caafimaadka la soo hadlo ama coronavirus call centerka la soo hadlo, because ilmahaasi hore u xanuunsan karaa. Marka carruur baa aanan laga helin COVID-19 oo laakiin cudurkan qaba. Marka dhowr baa laga helay qaba COVID-19 aanan qabin, laakiin waxaan bay qabaan multi-system inflammatory disorder. Marka sideed u diagnose garayn kartaan? Waa ilmo ilaa 19 jir ah oo 3 maalmood xumad qabay iyo 2 qodob oo 5 qodob waa inuu ka haysto, ama waa inuu rash haysta, xasaasiyad, ama indhihii cas conjunctivitis, ama afkii oo casaaday, debnihii oo casaaday, ama uu rash iyo casaan iyo inflammation kaga dhaco gacmaha iyo cagaha. Taasi waa qodob. Qodobka kale waa blood pressurekii hoos u dhacay ama ilmihii shooga. Qodobka saddexaadna waa qofkii ilmihii yaraa oo wadnihii ay dhibaato kaga kulmeen, pericarditis, valvitis, echogii baa inta badan waxaa sheegaya, ama waa ilmihii oo dhiiggii ay xinjiro noqdeen, ama waa ilmihii oo calool xanuun isku arkay, shuban, matag, ama waa marka 5 qodob laba uga baahan yahay, iyo xumadii ina conditionka laga helo, iyo dhiigagana inflammatory picture baa laga arkay, ESR, CRP ama procalcitonin oo raista, iyo waa inuu ilmahaasi marka testingka lagu sameeyo aanan cuduradan kale streptococcal, staphylococcal aanan laga helin, because taas waa cudurka u gooniya oo differenta. Waa ina COVID-19 ama laga helo ama cudurada kale aan laga helin. Kuwaasaa multi-system inflammatory syndrome qaba. Marka badni waxay u eegyihiin carruurta Kawasaki oo COVID-19 qaba, ama toxic shock syndrome. Marka waa cudur cusub weeyaan oo caalamka laga arkay carruurta. Marka waxaa la rabaa dad idinku aragtaan, Somaliland dad ku aragtaan, ama meel kasta aad joogtaan Soomaalida, waa ina aad u sheegtaan dadka maamula hospitaaladiina. Kolay WHO-gay xiriir leeyihiin, because waxaa la rabaa in la ogaado inta carruure cudurkan ay ku dhacday. Markay WHO-ga ogaadaana waxaa laga yaabaa inay more caawimo idin siisaan, because carruurtani way aad bay hore u xanuunsan karaan, waxay u baahan karaan in intubation lagu sameeyo. Marka
special care bay u baahan karaan. Waad arkaysaan Maraykanka oo kale waxaa lagu daweeya carruurtan IV immunoglobulin and steroids. Marka lama hubo inay cudurkan cusub ay just taasoo lagu daweyn karo ama ay dawooyin kale u baahan tahay, laakiin more aad World Health Organization-ka aad la xidhiidhaan oo tirahdaa carruur saasan oo kale haysanaa oo COVID tested u dirneen la sugayo, the more aad hadashaan, the more information la idin siiyo iyo caawimo. Marka insha Allah halkaasaan ku koobaya maanta. Insha Allah bishii barakeysnayd ee Ramadaan way soo gabagaboobaysaa. Marka insha Allah ciidii wax badanba kamay harin. Ciid wanaagsan baan insha Allah idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.